وايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو ورمي ولي وايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو ورمي ولي الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو ورمي ولي kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii waayaha nolosha oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Universal barnaamijkan wuxuu idinkaga yimaadaa magaalada Hargeysa waxa barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin sicir bararka baasan ee ka jira deegaanada Soomaaliland sicir bararka kulli daraasad bay u baahan tahay dheer anigu waxaan sidii 3 meelood ayaa koskareeyay xoolihii aynu dhoofin jirnay oo dee la joojiyay doolarkii halka inaga soo galay yaraaday midda labaad oo ah xukuumadda Soomaaliland oo kaash fara badan magaalada soo galisa sariflayaasha markan saa u soo maray wuxuu maan arkayaa un kaash cusub oo saa u rasaysan sidoo kale waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijka waayaha nolosha ee toddobaadkan cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Buuhoodle arrintan cid xakameyn karaysa dawlad baan xakameyn karin dadkuna ummadda oo dhan islaamka meel kasta joogay soo tawaada weyn wax ka karsan faraha ka baxday xaaladdu mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waayaha nolosha ku soo qaadan doonana waxa kamid ah sicir bararka baasan ee ka jira deegaanada Soomaaliland kaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliland waxaana korukac weyn ku yimid lacagaha qalaad ee doolarka isagoo hoos u dhacna ku yimid shilinka Soomaaliland waa kan wariyaha telefishinka Universal Najiib Cabdiwali Cabdixiis oo suuqa weyn ee magaalada Hargeysa kula kulmay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa halkan daawadayaal aan ku suganahay waa mid kamid ah goobaha sariflayaasha magaalada Hargeysa waxaa dhinacayo jooga mid kamid ah dhalinyarada ka shaqeysata arrimaha sariflayaasha iyadoo muddooyinkii u dambeysay magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland oo halkii ugu sareysay ka gaadhay kor u kaca shilinka doolarka Mareykanku sidoo kale hoos dhac balaaran uu ku yimid lacagta shilinka Soomaaliland walaal magacaaga markii hore walaal magacayga waxa la Guuleed Xasan Aadan guuleedo bal waxaad warbixin kooban naga siisaa kor u kaca ku yimid lacagta qalaad iyo hoos dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland wallahi tan ka hadla maanta sarifka maanta aad buu qaali u yahay gacanta hore waxay maraysaa 9300 oo shilin tii kale waxay maraysaa 9000 oo shilin marka qiimo dhaca sarifka shilinka Soomaaliland ku yimid aad buu wallahi u saameeyay dhammaan bulshada Soomaaliland dhammaan dawladda Soomaaliland aad bay u horseedi laadahay sarifkan dadka dhibaatada haysata abaaraha xataa dhibaatada dadka haysata intee laga sahlo oo dadka hoos loo eego ayaa wanaagsan iminka shilinka Soomaaliland markaan maanta aan ku soo qaato $100 9,000 oo bura ayaa haddana koodhanaya wuxuu marayaa 9,300 shilin oo u dhiganta 9,930 oo shilinka Soomaaliland marka wallahi dhibaatada aad bay xuntay wallahi waqtiga hore wuxuu ahaa 8,000 oo shilin waa maalmo dhaweyd maalmihii ka horreeyay wuxuu ahaa 6,800 oo shilin dawladda Soomaaliland ma way ka hadashay mar waxay tiri waxaanu goynay bahalka inaanu ka dhigno 7,500 oo shilin gacanta hore ta kalena aanu 7,000 oo shilin ku goyno laakiin dawladdu arrinka way ku fashilantay waxba kamay qaban way ku fashilantay arrinka marka la eego kor u kaca shilinka sarifka lacagaha qalaad sidoo kalena hoos dhaca shilinka Soomaaliland oo aad sheegtay inuu isu soo tirayo mar waxa 6,800 7,000 8,000 imikana uu maraya 9,300 oo shilin marka idinka ka sariflayahan dhibaato inta laga ku saarantaas wallahi dhibaatadu ma been ugu haysaa waayo anagu marna waanu ku faa'iidnaa marna waanu ku khasaarnaa markaan maanta aan ku soo qaato 8,000 oo shilin haddana bari la 7,000 oo shilin 100,000 oo shilin baan hoos u dhacaa 100,000 oo shilin baan $100 ba khasaara marna 100,000 baan $100 faa'iida marka wallahi anaga laftiga xataa dhibaato aad weyn baan naga haysta baalka
marka maxaa sababi karaad u malaynaysaa kor u kaca lacagta qalaad iyo hoos u dhaca lacagteena caadiga waxa la dhibaatadan ka haysta waxa weeyaan weli dawladdu ma fahmin waa qoladan shirkadahan qaadka waayo bariga hore bahalka wax lagu diri jiray qaadkan bir baa lagu bedeli jiray bir baa lagu diri jiray laakiin maanta wax qaadka waxa waalaya sarifka waa qaadlaha oo waayo iminka gaafanoo kale kan faraska la 725ka habeen walba waxay ka saaraan intaasoo milyan oo $1,000 bay waddanka ka saaraan ha ka saaraane markay sariflahan u tagaan ay dhahdaan waar iga iibi intaasaan qaad ku doonayaa udha qaadka inta lacag inta leeg qaad ku doontid ma hayo kan kala oranaya anaa hayo milyan mega siisanaysa haduu dhaa uu ka siisanaya marka dhibaatada ugu weyn halkaas ka taagantay waxaan leenahay qaadka laga dhigo bir baalku marka hoos buu noqonayaa dhibaatada haysta waa taa wali dawladdu ma fahmin Telesom iyo Somtel bay ku meeraysanaysaa taas waxba dhibaato kuma hayso waddanka xagga maciishada kale markaad eegto maadaama sarifkii lacagii qalaad oo kor u kacay tii Soomaaliland hoos u dhacday saameyn ku yeelay wallahi haa dhibaato aad weyn iminka mushkiladda aad dadka dhibaato aad weyn ba ka haystaa waayo bakhaarkii oo kale markaad tagtid 600 kun oo shilin baad sidataa bakhaarkii baad tagtay raashin baad doonaysaa gadbadii bariiska waxay maraysaa maanta $20 20kii doolarna waa 200 kun marka dhibaato aad weyn ba halka mushkiladda ka haysta dadkana aad bay wallahi halka ugu xuntay dadka in la joojiyo waxaan doonaynaa sixir bararka in la joojiyo dawladdu ka hadasho ganacsatadu ka hadasho dadkeena danyarta in loo daneeyo in wixii danteena aanu qabsanno inaan dhulka kala soo baxno khayraadka ku jira inaanu soo saarno khayraadkeena inaanu gacmaha isqabsanno inaan ilaahay dartii u soconno ganacsatadu dadka masaakiinta ee jilicsan waa inay u gargaartaa doolarka kacay hala dawladdu ha ka hadasho dawladdu ha ka hadasho 9 caruuran dhalay ninkaygu waa askari wax allaala waxaan sameeyo ma garanayo bisha oo 15 cisho ayay igu goodaa lacagta u soo qaato waxaan ka codsanayaa dadkeena sharafta leh si dhaqso inay uga hadlaan sixir bararka ay naga joojiyaan oo doolarka sidoo ha lagu soo celiyo oo dayarta loo gargaaro oo ilaahay laga baqo oo abaarahan haysta wad arkaysan waana waxaan anagu sababa walaalaan isku gargaarno aan isku naxariisanno aan ilaahay dartii u soconno walaal waxba noo qabsoomaya ilaahay baa noo gargaaraya walaal dawladda aad iyo aad waxaan uga codsanay inay ka hadasho sixir bararka inay madaxdeenu ka hadlaan sixir bararka inay ganacsatadu ka hadasho wax garadku inuu ka hadlo suldaamadu inay ka hadlaan in laga aamuso maaha shicibku inuu ka hadlo insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo naxariisto raxmadiisa noo shubo dadkeena baaba'ay ee cudurro saameeyeen abaaru saameeyeen insha Allah ka dulqaado dhibaatada Somaliland ilaahay waxaan ka bariyaa dhibaatada inuu ka dulqaado inuu u gargaaraan ilaahay ka bariyaa xagga min Allah ilaahay inooga gargaaro masaakiinta Allah caawiyo ilaahay inoo wada gargaaro dawladdu si dhaqso ah uga hadasho doolarka kacay sidoo ah lagu soo celiyo shicibku ha kaco هلا وضع هذا رجع دمر بيان لامسين إلهي نسبو كانيا نسربو كانيا رحمته الشوية إن الله مع الصابرين إن شاء الله هويو خير بان هويو إلهي نقدر تشيني خير بان إلهي نقدر تشيني دلنيرتا ganacsatada suuqa kamid ahay marka waxaan ka hadlaa sixir barka waxa keenay waxa weeyaan waa dawladda waxa weeyaan lacagtan ay bacda ku jirtay soo saartay ee sarafliga dhax keentay taasa keenaysa caqabada doolarka qof kastoo lacag sarfanaya lacag casaan u doonaya wuxuu doonayaa lacag 5,000 shilin marka lacagtii 5,000 shilin ahayd iyo 1,000 shilin soo baxay caqabadeedii baa keenaysa sixir barkan fara badan marka dawladdu lacagtan iyada gacmaha ku haysa doolarkiina iyada haysa kaashkiina iyada haysa waa inay labadaba wax ka qabata 500 iyo 100 shilin ee shaqeynaya hadii dawladdu loo gimbaartiiba noqotay 100 shilin iyo 50 shilin laga carreeyay 500 ma ku soo adigu maadaama aad ganacsada kamid tahay ma qaadataa lacagta gimbaarka maadaama aad sheegtay in waxyaabaha kor u kaca sarifka lacagaha qalaad keenay ay tahay lacagtii shilka Soomaaliland meesha ka baxday dadka reer Soomaaliland qaarkood aragti taa ka duwan bay qabaan waxay leeyihiin xukuumaddu waxay soo daabacday lacagayo fara badan adiga ka ganacsada ahaan lacagtii shilka Soomaaliland wax ku iibisa waan ku iibiyaa kaashkii waan qaata qasbiyan dadkii lacag bisitaadna la baadibinaysa kaashkii waa qaadanaysaa qasban lacagtii baad u baahanta caqabad buu ku keenayaa din markaad qaadato kaashkii aad haddana suuqii la tagto qiimo ka badan baa lagu dhufanayaa 5,000 shilin markaad sidato iyo 500 different baa u dhaxay marka dawladdu wixiiba iyada gacmanta ku haysa doolarkii way haysaa kaashkiina way haysaa 1 milyan oo kaliya suuqi keentaa ku filan aad u baasad aad baan Ilaahay barakaatu magacayga Salmaan Axmed Faarax baa la yiraahdaa runtii sicir bararka ma malaynaya in laga hadlayo sicir bararka kulli daraasad bay u baahan tahay dheer anigu waxaan sidii 3 meelood ayaa koskareeyay xoolihii aynu dhoofin jirnay
oo dee la joojiyey oo doolarkii halkaa inaga soo gelaya yaraaday midda labaad oo ah xukuumadda somalilan oo kaash fara badan magaalada soo gelisa sariflayaasha markaan saa u soo maray wuxuun baan arkayaa un kaash cusub oo saa u rasaysan markaa waxaan is idhi dee qudheedii baan doolar soo gelinayna kaashuun soo gelinaysa uun dee markaa doolarkii way guranaysaa un baan is idhi qudheedii markaan fikiray ta saddexaad waxa weeye dee etoobiya iyaduna inaga guranayso doolarkii etoobiya iyaduna doolarkii guranayso tidhi birtii iyo lacag kalena noogu keenina doolar noogu keena dee doolarka markaa xagguu ka imanaya waa inuu midhmidhka yaallaa cirka isku shareero waa wax dabiiciya taas waa sidii daraasada lagu sameeyo sidii loo daweyn lahaa ha la sameeyo dhinaca maciishada markaad eegto kale maadaama korkac uu ku yimid lacagtii doolarka hoos u dhacna uu ku yimid tii Soomaalilaanta dhinaca maciishada saameyn intee lag bay ku yeelanaysaa mar haddii doolar bay nimankani wax ku soo iibsadaan marka doolarkii dee mar hadduu kor u kacay shay qalada uun baa jira oo ah markii uu doolarku kaco inay haddana dadkii ku sii kordhiyaan qiimihii taasu waa qalad dawladduna inay wax ka qabato weeye laakiin dee kolley markuu doolarkii kaco wixii kalena way kacayaan marka waxaad arkaysaa iminka qalinkii yaraa oo 1,000 shilin aan jiray oo 1,500 lagu qiimaynayo marka waayo doolarkii baa iyaga ku kacay oo doolar baa lagaga soo iibinaya laakiin ganacsatada waaweyn waa ganacsatada waaweyn kuwa dhibaatada ay macnaha tahay inay waxaan la dagaalamaan ay xukuumadda isgarabsadaan taasina ma muuqato wasalaamu calaykum marka aynu ka hadlayno xagga ninkanba siduu u hadlay xagga sarifka aynu ka hadlayno waxa weeye dawladdu way maamuli garan weyday sarifkii iyo badeecadii iyo maamulkii iyo ganacsatadii iyo wixiiba waayo shilinkii Soomaalilaanta ahaa qaadle iyo khudheel mooyaane cid ka qaadanaysa maanta ma jirto waxaana waxa ugu wacan waxa weeyaan dawladda ugu wacan waxa weeyaan iskuulkii ma qaadanayo ganacsatadii qaadan mayso macallimiintii qaadan mayso dawladdii hoose qaadan mayso waxa weeye waxa la wada doonayaa doolar marka waxa weeye waa in la socodsiyaa shilinkii Soomaaliga ahaa waxa weeyaan macallinkii haddii la ashkateeyo bay carruurta waxba u dhigi maayo soo ashkateeyay bay yidhaahdeen lama soo ashkateynayo waxa weeye in la isugu yeedho oo dawladdu la hadasho oo falowga u qabataa halkuu doolarku ka kacay waxa weeyaan socodsiinta shilinkii Soomaaliga ahaa ee la wada diiday maanta qaadla iyo khudheel mooye cid ka qaadanaysa ma jirto kaasuun baan kombiyuutar ku garaacay waxa weeyaan haddaba dawladdu madaxweyne wixii ka hooseeya waxba maamuli garanba maayaan shaqadii sarifka iyo tii ganacsiga iyo tii wasiirnimada garanba maayaan kulba wasiir dhargay baa kule sicir bararka magaalada saamiyay waxa muxuu qaban karaa waxa leeyahay wuxuu ka qaban karaa ma jirto halkan uu soo badhiya markuu waxa weeyaan waxa lacagti 2001 waa la soo sameeyay 2002 waa la soo sameeyay 2004 waa la soo sameeyay 2006 baa la soo sameeyay 2007 baa la soo sameeyay 500 shilin way ka baxday joornaal bay noqotay googo'ay 1500 baa la soo sameeyay waxa la 1,000 shilin iyo 5,000 baa la soo sameeyay marka doolarkii imaka wasiir waliba intuu warqad qoro ayuu oranayaa 60 milyan iiga soo qaad bangiga doolarna wuu ku qaadanaya isagii baa diiday dabeetana TV-gu soo fadhiisanaya suuqleysa sixir bararka hadheeyay magaalada waa inaynu doolarka wax ka qabanaa hoos u ridnaa sarif loon buu ka soo cararaya sarif la maxay kaga soo cararayaan dadkii lacagtii bay wada xambaarsan waxay doonayaan doolar macallinkii baa ku diiday oo ganacsatadii baa diiday oo iskuulkii baa diiday oo cid waliba way diiday waaye marka ayagu maxay hawaa hagaaga maamulayaan ay xukumayaan waxa weeyaan inay mas'uuliyiintu isu tagto waa in ay isu tagaan waa inay horta beeraswan iyagoo sixir barar ba eegin ay falowgooda la qabtaa shilinka Soomaaliga ah sidii loo socodsiin lahaa ay ummaddu u kala qaadan lahayd ay u kala qaadan lahaa kiroolo u qaadan lahaa uu macallinku u qaadan lahaa uu iskuulku u qaadan lahaa wuu nafisayaa doolarku waayo haddaba ciddii arrinta ay shaqada taqaanay meeday xaggay ka dhacday sarif lun baa lagu soo cararaya leeyahay doolarkii jabi waa lagu xidhi sidana lagu odhan muxuu jabin dadka ummadii ilaahay lacag bay wada xambaarsantay waxa la doonayaa doolar waxa weeyaan dawladdu ha xukunto shilinka Soomaaliga ay soo sameysay aynu Soomaaliland ugu dhawaaqnay hal la kala qaato baan leeyahay assalaamu calaykum geesta kale waxa isla sicir bararkan ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed oo ka hadlay saameynta xooggan oo ku yeeshay dadka danyarta ah ku nool Soomaaliland sicir bararku bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam orda sala socotaan waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa sicir bararka hadda waxa uu sababa
iskuma diidanayno inuu dhaqaalaheennii waddanku runtii hoos u dhacay waxyaalihii inoo ahaa lafdhabarta dhaqaalaha ee doolarka inoo soo jiidayey waxaa ka mid ah xoolaheenna nool waxaa xoolaheennii noolaa totally meesha way ka baxeen qaar ay abaar naafaysay iyo wax totally macnii iibkii laga xidhayba ayay noqotay innagu waxa weeyaan dad wax soo macnii waxa weeyaan exportkeennu wuxuu ahaa keliya wuxuu ahaa xoolaha nool xoolo wax kaloo leen haba yaraatee may jirin markay meeshii ka baxday maxaa ka baxaya meesha lacagta adkadiina soo geli jirtay runtii xukuumaddu iyadoo dadaalaysa madaxweynuhu soo saaray guddi buu magacaabay hawl fara badan baa wax laga qabtay waxaynu teergaraynay in lacagteennani ay expansion samaysay macnii waxa weeyaan fiddo oo la isticmaalo dawladdu kharashkii bay yaraysay maanta ilaa saacaddan kula hadlayno wasaaraduhu shidaalladii iyo waxyaalihii mooyaane wixii kharashaaday kaloo dhan waa la xidhay saasoo ay tahay haddana doolarka ismu taagin halkaa waxaa ka muuqata capacity ka weyn xukuumadda inay jirto oo runtii dhibaatada sixir bararka oo runtii ay u sabab tahayna dee arrimahan idinka soo sheekeeyey marka waxa weeyaan ganacsatada waaweyn ee ka midka yihiin dahabshiil telesom runtii doolar inay ku sii daayaan suuqa oo macnaheedu waxa weeyaan ilaa waxa weeyaan meel baynu wada saaranahay si ayna sula degin inay maartay ay hoos u dhimaan si doolarka hoos ugu dhaco runtii arrintaa waan ka wada soconnay waana waxyaalaha taa iyo waxyaalo fara badan oo kale aan doonayno inaynu ku yarayno maxay tahay sixir bararkaba dawladda iyo xukuumaddu way ka shaqaynaysaa meel fiicanna way maraysaa daawadeen intaa haddaynu kaga soo gudubno wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed oo ka hadlayay sixir bararka waa kan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo talooyin soo jeedinaya sidii ummadda looga badbaadin lahaa sixir bararkaasi baasan ee ka jira Soomaaliland sixir bararku waxa weeye kow horta waddan aan waxba dhoofinaynin wax kasta soo dejisanaya doolarkii doonaya mushaar doolar ku bixinaya qaadkii doolar ku cunaya oo dhacaya sicir barar waxay isdhaafaya lacagtii inagu helin doolarkeeda iyo tii inuu baahan inagu isticmaalo anigu waxaan ku talin lahaa waa kow horta waa in la joojiyaa lacagtan wax lagu iibsanaya oo mamnuuc laga dhigaa in mushaharka lagu bixiyo doolar in cuntada lagu cuno doolar qaadkan aan wax ay faa'iido aan lahayn habeenka 300,000 oo doolar inaga baxaya oo inta doona ku iibsanayo 1,200 1,500 ku iibsanayo ala joojiyaleen qaadka la joojiyo ala uu iibsado lacagtan talaabisa hala qabto waa kotarban wadamada waaweyn ayaad kala bixi karin 10,000 wax ka badan 10,000 doolar ka badan hadda 10,000 badan ka badan laga helo laga qaadaya habeen kasta waxay naga baxay 300,000 haddaynu sharciga u dhowrno qof aawadi oo sharci noqon sharci caama sharci maaha baashi loo isnadlo alayna haddaynu hebel dhowrno shacbigii baa safar gareynaya hadday dawladdu ka adkaan weydo shacbigeeda baa mushtariga ka adkaan weydo authority-geeda uu jilaya meel ay ku socoto lacag qalaad oo lagu bixiyo biilkii oo lagu bixinayo doolarkii dalkeena jira teeni baa istaagtay talaba wax weeye hala joojiyo waxa aynu u baahnayn la soo dejinayo luxury ee doolarka lagu soo iibinayo hala joojiyo wixii aynu samaysan karana hala koorijiyo beedkii baa inoo imanayo dibadda laga keenaya beed hareeraha samaysan jiray qof afar jigaad lahaan jiray yaanyadii baa ka imanaysa tamaandhadii baa ka imanaysa yani daruuriyaadkii waxa aynu cunino waxa quraynu ku leenahay waa hilibkiina wuxuu inoo waa yaraadayba isa badankiisu Ethiopia nooga yimaada da ummad waxba aan haysan wax doolarna haysan waxa doofineen u qaali garoobiya waa in cuntadeena cunaa waa in dhulkeena aynu beeranaa maanta waxa la leeyahay cuntadii organic leeyahay ee ku baxay dabeecadda ayaa la leeyahay organic magaalada supermarket tagtay Europe iyo Mareykan taasina wuxuu beerno u baxda way ka qaalisantahay tala la buuxiyaa la bedela
وين هروكين عنا قمديدين عنا عربي خدين عنا دقيرتي بيرنا سريدي صوص علينا حبدا sunflower سومان لك بحلا لتر بين غرسة عشان عاد قبل آدم sunflower ما قال حوي دوينه أنو يرينا وحين دورك كبحين باورتان نسكاس عطاق غروينك وين دبل لقديك عشور تيدا سيجارك وين دبل لقديك فرنيتشر كوين كينا ويبسنا الروسيا دينا أمد أن إدبكر كان مسؤول أو لو دم قرينا يوحي حكاسات دبل لقى كينا با أو الدولار دونيسا سأل بقى كنت ماشي لابوك بوغاري وحنا سفر قرين دونا دتك مساكين ترى لكن دولة ده صور حق اللي سي أمرهم بعدها وين دمانت يسبالك سبحان سكرينا دولة وين دي دولار سوق اللي صار دولار ما يصير كان هو هايبر انفليشن مالنا هناك سوق السعودية كان كان يمكن إثيوبيا وصعد أو انفليشن ده لك حكم لكن كانوا وحركة قوس وكان في نيوزيلندا لكن زامبيا هلا يعني زيمبابوي ما كان الدولار كعادتي وحنا وحنا بهانت ساينتفيكلي علمي بهانت ايكونوميست بهانت ما بهانت سياسة ما بهانت لما كان الحمد لله إلى برنا سبحانه وتعالى daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobka labaad ee barnaamijka waayaha nolosha qodobkaasi oo ah cudurka shuban-biyoodka oo ka dilaacay deegaanada Buuhoodle kaasi oo soo ritay dad tiro badan kuwaas oo yaala cisbitaalka guud ee magaalada Buuhoodle warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa magaalada Buuhoodle nooga soo diray wariyaha telefishinka Universal ee Khadar Awil Ismaaciil ee daawasho wanaagsan arrintan cid xakameyn karaysa dawlad baan xakameyn karin dadkuna ummadda oo dhan islaamka meel kasta joogay soo tawaada weyn wax ka saarto faraha ka baxay xaaladu cudurka shuban-biyoodka oo muddooyinkii dambe ka jiray magaalada Buuhoodle ayaa xaaladiisu tahay mid ka sii daraysa boqolaal qof oo uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ayaa la jiifiyey cusbitaalka Daryeel oo ah cusbitaal gaar loo leeyahay oo uu dhisay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye waxaana cudurka shuban-biyoodku yahay mid sii faafaya iyadoo uu ku faafay deegaano horle sida deegaanka Goljanno oo dad badan uu soo ritay qaarna u dhinteen xamar lagu xidh dandan iyo xararanka oo ah deegaano ku xeeran magaalada Buuhoodle howlwadanada ka howlgala cusbitaalka Daryeel oo la jiifiyey dadka ugu badan ayaa sheegay in 350 qof ay hadda jiifaan cusbitaalka oo bismillaahi raxmaani raxiim hortaan waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta laga soo diray shantii dhakhtar ee ugu horeeyay ee halkan imaada ee ka yimid cusbitaalka guud ee Hargeysa marka maalintii ugu horeysay aan nimid ilaa dhowr iyo 30 qof baa yaalay xanaanada centraalka kadib aan ka soo rarnay halkan aanu keenay bukaanka marka la isku geeyo total ahaan shalay waxay marayeen 356 bukaan ah 356 saaka waxaanu saarnay 35 bukaan ah oo caafimaaday marka hadii jeer dadku waxay u badan yihiin dad aad u fog baxay oo la keenayo iyagoo xaaladii ugu dambeysay ku jira oo xaalad culus ku jira sida darteed markii hore shaqaalo way yaraayeen laakiin imika way soo bateen marka wax la oran karaa 350kii imika maanta way fiican yihiin oo naga 730 beeshan saaray waxaan ugu joognaa halkan ilaa 7 dhakhtar 5 dhakhtar oo Hargeysa ka yimid iyo 2 dhakhtar oo Buuhoodle joogay shaqaalaha caafimaadka ee markii hore nala joogo waxaan ilaa 6 laakiin shalay talo wax dhacday ardaydii iskuul neersanka oo kale la soo fasaxay ilaa 70 ah waxa kale oo la keenay qolooyin kale oo volunteer oo dhammaan shaqaalaha caafimaadka ee Buuhoodle marka imika si fiican baa loo ka fargareeyay laakiin markii hore shaqaalaha yaraa baahida ugu badan ee halkan ka jirta markii hore waxay ahayd shaqaalaha laakiin imika shaqaalii way fiican yihiin way ku filan yihiin way hal qof oo culus marka lagu keeno ee aad dawooyinkii iyo efficiency ku xidho waxa loo baahan yahay qof monitor gareeyo xaaladiisa la socdo si aad ka cusub adiguna u qaabisho imika si fiican ma ka fargareyn karnaa dawooyinka iyo wax walbana way ku filan yihiin dawooyin badan oo aad u tiro badan baa soo gaaray cusbitaalka aad iyo aad laakiin kulli waxay u baahan yihiin haddana in inta laga soo kordhiyo way waxa laga yaabaa qofkiiba inay ilaa 20 milo faleenba ama wax ka badan u baahdo afartii cashay u dambeeyay cudurka shuban-biyoodka waxa uu dhintay 12 qof
oo ka mid noqonaya dadka u dhintay intii cudurkani soo bilowday tan iyo bishii hore waxaana dadkani ay ku dhinteen tuulada Goljanno iyo Buuhoodle inta badanna dhakhaatiirtu waxay sheegeen dadkan dhimanaya inay ka soo daaheen goobta caafimaadka iyadoo aysan baabuurta gurmadka degdega ah ee goobtan caafimaadka u shaqaynaya ku filayn inay soo wada qaadaan dadka dhibaataysan ee deegaanada kala duwan cudurka ku soo ridanayo sida uu sheegayo Dr. Xasan Yuusuf oo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland u qaabilsan Buuhoodle runtii xaaladda halkan ka jirta waa xaalad aad iyo aad halis u ah oo outbreak baa dilaacay kaas oo runtii capacity-ga markii hore magaalada ka awood weynaa laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa aad iyo aad loogu soo gurmaday dhakhaatiir aad fara badan oo ka yimid Hargeysa iyo dhakhaatiirta gobolka oo iskaashanaysa runtii wax badan waanu xakamaynay si fiican waa loo minimize gareeyay waxaa jira dadku imika shaqaalaha caafimaadku aad buu badan yahay shiftiyada way kala qaybsadeen waxaa jira dadkii recovery-ga sameeyey la discharge gareeyay ee baxay dadkaasi waxay u badan yihiin dad danyara dadka danyarta ah xanuunka awalan wuxuu kaga bilowday qofkii malnutrition oo biyo qaraar cabaya the reason is that وقفكي وقاچوناي وبيق قرار اوري كسو بخو كلول عبيا كدبنا جي اي ابسط بدعيا علوش قفكو وكعيسا كدبنا وشميا لازم marka xanuunku dadka meesha uu ka bilaabay halkaas yahay marka dadku baahida ay qabaan waa nafaqo darro iyo xaaladda nololeed la og yahay oo dadkii xoolaha ka bixin dadkii miyiga u badan yihiin marka waxaan dhihi karnaa runtii dadkaas marka ay recovery garoobaan ee la discharge gareeyo ay baxaan dadkii u gargaari lahaa ee samafal u fidin lahaa waa inay yana xisaabta ku darsadaan in dadkaas markay baxaan ay u baahan yihiin nafaqo dhammaystiran kaysaska halkan ku dhintay adigu dad iyagu miidan loo keenay baa jira laakiin intaan hubo hal qof baa ku dhintay saaka laakiin shalay waxaa jirta 4 ciyaala oo walaalaha waa bood soo qaaday oo mid ka mid jidka ku dhintay oo afartii marka halka la keenay mid already mid yahay waana loo keenay marka shalay 4 qof dhimatay dadkuna waxay ku dhinteen intii soo waday laakiin halkan waxa ku dhintay hal qof kaliya oo saaka ku dhintay Isbitaalka Daryeel ee magaalada Buuhoodle oo la jiifiyay bukaanada shuban biyoodka waxaa xilligan jiifa 350 qof iyadoo ay ka howlgalayaan ilaa 7 dhakhtar oo 5 kamid ah ay ka timid Isbitaalka Guud ee magaalada Hargeysa waxaa sidoo kale ka howlgalaya in ka badan 100 shaqaale caafimaad oo u badan kalkaaliyayaal caafimaad dhakhaatiirtuna waxay sheegayaan in hadda xaaladdu ay tahay mid degan inkastoo dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad ee xarunta Isbitaalka Daryeel oo dadka shuban biyoodku soo ritay lagu dabiibayo ay aad u dadaalayaan haddana waxay sheegeen inay joogto tahay baahida daawada iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadkuba maadaama ay soo badanayaan dadka ugu soo ridanaya shuban biyoodka iyada oo maanta oo kaliya galankeedii hore ay qaabileen 70 qof oo cusub oo shuban biyoodku soo ritay sida uu sheegayo Fadxi Cabdikariin oo ka mid ah kalkaaliyayaasha caafimaadka ee xaruntan ka howlgalaya oo ka socda hay'adda maxalliga ah heesaas bishii hore dhamaadkii ilaa bishan laakiin bishan dhowr 10 casho maraysa oo aad u sidilaa xanuunkani dhowr 10 casho haddana anagu isbitaalkan ka howlgalin anagu kamid shaqaalahaas waan ka howlgalin dadka dhimanaya maanta oo kaliya gelinka hore oo kaliya abaf 70 new cases waan qabanay intii hadda nala joogtay gelinka hore qura iska wada maan kara waa maalmaha ugu yareed maanta 70 in ka badan weey inta aan qabanay gelinka hore qura waa inta nala joogtaan qura oo emergency case ah oo new case maalmihii maanta waa maalmaha ugu yareed xaaladdu waa very seriously dadku aad buu dhimanayaa wax kasta wixii oo yaalay waxay u baahan in ay aad u bataan adiga cafad kuma filan kara waayo dadka ka farbadan wax kasta waxay u baahan in la soo kordhiyo wax kasta haddii gaari la keeno maanta dawaa saacada ma olayo gaari rin kara haddii la keeno saacad ma olayo kartoonkii waxa lagu xidhay 3 qof oo kaliya hal qof lagu xidhay kartoon rin kara marka xaaladdu ambalaasada waxa loo farbay ku aad farabadan wax walba waa loo baahan yahay inkasta oo ay jiraan gurmadyo badan oo soo gaadhay xarunta caafimaadka ee Daryeel oo u badan daawooyin dhinacyo kala duwan ka yimid haddana waxaa taagan weli baahida iyadoo ay buuxsameen qolalkii loogu talagalay bukaan jiifka ee isbitaalkan iyada oo dadkuna ay hadda jiifaan banaanada dayrka weyn ee isbitaalkani uu leeyahay qolalkii way buuxsameen hatta qolalkii banaankii way buuxsameen hadda banaankii oo loo u baahan dadkii teedhooyin looga dhiso oo waaba looga dhiso oo bulbulin looga dhiso qolal iska wada
maalin afraad way buuxeen qolol maalin afraad way ka buuxeen dad qolol waayo maalintii waxaa imaanaya 170 qof 105 qof ilaa 180 qof 120 qof maalintii imaanaya dadku miigu aad buu u dhimanayaa intuusana soo gaarin aad buu u dhimanayaa hadda ilaa intaan tiradaan hayno ilaa 6 qof 7 qof baa cusbitaalku dhintay soo gaarsiiyay iyada wax loo qaban qadar caawil ismaaciil telefishinka caalamiga ah Universal Buuhoodle daawadayaal intaasaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii waayaha nolosha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kala ku kulmi doono waxaan isku dhaafaynaa dhankayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bawaayihiisa layn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli bawaayihiisa layn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli layn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli